jiif caaqil dayib jiif caaqil cabdi ciidle ammaan oo ah jiifka guud ee cuqaasha gobolka Gabiley ayaa maanta si rasmi ah loogu caleema saaray tuulada ceelginiiseed oo kamid ah deegaanada buuraleyda waqooyiga gobolka Gabiley kadib markii aabihii jiif caaqil cabdi ciidle ammaan uu dhawaan ka geeriyooday jagadaasi jiifnimada ee uu hayo cuqaasha dadka deegaanada gobolka Gabiley. munaasabad ballaaran oo lagu caleema saaray jiif caaqil dayib jiif caaqil cabdi ciidle ammaan oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu qabtay barxad ballaaran oo si fiican loo horgoglay aqal Soomaali laba daryaala ah ayaa waxaa ka soo qayb galay raxan salaatiin ah oo ay horkacayeen Suldaan Xasan, Suldaan Cabdilaahi, Suldaan Cabdiraxmaan iyo Suldaan Ismaaciil, Suldaan Cabdiraxmaan Maxamed, boqorro aqlabiyada cuqaasha dadka deegaanada gobolka Gabiley, xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ay kamid yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Soomaali iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar, musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga UCID Jamaal Cali Xuseen, qaar kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo, xubno kamid ah golaha deegaanka Gabiley, ganacsato iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. caleema saarka jiif caaqilka guud ee gobolka Gabiley oo uu caleema saaray suldaanka guud ee gobolka Gabiley Suldaan Ismaaciil, Suldaan Cabdiraxmaan, isla markaana halkaasi ka hadlay ayaa Ilaahay uga baryay inuu ku asturo xilka culus ee uu qaaday dadkiisa. jiif dayib cabdi ciidle ammaan Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay xilka ku asturo. xil ballaaran ayaa loo dhiibay, xilkana qofka Ilaahay saaray isagaa ku asturo. waxtarka weyn waa ka xagga rabbiga ka yimaada. intuu isagu istarayo iyo inta Ilaahay u tarayo labadaa weyn. iminka waxaan bilaabaynaa iyada oo ay xafladda iyo hadalladeedu iska socon doonaan inaan caleema saarno dayib cabdi ciidle ammaan oo jiifnimo u caleema saaro. baan u malaynayaa dayib sidaanu caleema saarno maanta ayaa loo agsoogi doonaa insha allahu tacaalaa. waxaan u ballan qaadaynaa annagu dayib inaan la shaqayno. suldaanka guud ee beelaha gobolada Saaxil, Hargeysa iyo Gabiley oo isaguna si rasmi ah ugu cumaamaday jiifka guud ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa sidii uu gacanta noogu soo qabtay bahda dhaqanka haddaanu nahay oo raggayagii ka dambeeyey ee ay awoowayaashoodii aabbayaashood soo wada shaqaynayeen uu ahaa siduu noo soo gacan qabtaan jiif caaqil dayibna maanta annaguna u gacan qabanaynaa. haddaan suldaankii guud ee beesha ahay anigoo ku hadlaaya magaciin iyo magacaygaba waxaan maanta haddana iyadoo uu noo qaabilsanaa Suldaan Ismaaciil, Suldaan Cabdi caleentii waxaan haddana shaabadii ugu weyneed halkan ku dhufanaya oo shaabadii subulaha ilaa saaxil ku dhufanaya oo shaabadii kuwa jaale ilaa tanqor ku dhufanaya oo aan ku dhufanaya shaabadii xarsin ilaa xeeb. munaasabadda caleema saarka jiifka oo uu soo gunaanaday jiif caaqil dayib jiif caaqil cabdi ciidle ammaan ayaa ka dalbaday dadweynaha in ay ugu soo duceeyaan mas'uuliyadda uu u qaaday. aniga waxa garanayo nin laba xaasile halkii ninkii wallahi aniga maanta xaaladdeeda waxaa garanaya nin aabihii dhaxlay. Idris Ahmed Ismaaciil Qadiye, telefishinka caalamiga Universal.